daawadayaal wararka kale ilaa hadda ayna soo gaadhayna waxaa kamid ah Xildhibaan Sciid axmed raage oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco ayaa ka hadlay shaqada kasoo cusboonaatay degmada ceel afwayn. shirkan jaraa'id maanta waxaan u qabanaynaa anigoo ka hadlaya xaaladda guud ee dalku marayo arinta amniga saameysay ee laga soo sheegayo colaadda ka jirtay gobolka Sanaag muddo soo socotay waxgaradka iyo cuqaash iyo culimada Soomaaliland ba dhexgalay ciidamada amniga dhexgalay arintaas meel baa la dhigay waxaanu leenahay cidii fidnada wada gacan bira oo midaysan aynu ku qabanno dadka walaalahana waxaanu leenahay war fidnada lama kiciye fidnadana kicinaysaan joojiya iminka dunidu waxay u baahan tahay amni iyo horumar gobolka Sanaagna waxyaabaha dib u dhac ku keenay waxa kaloo degmada Burco iminka qabanqaabadii dhaqdhaqaaqeed ka socda shirkii cilaamiyeen madax dhaqameedka beelaha habar jeclo oo ay ku marti qaadeen beelaha garxajis shirkaas oo ah turxaan saar iyo wada hadal iyo laabaxaadasho lagu dhameystirayo arrimihii doorashooyinka lagu kala tawday shirkani waxa kale oo aad iyo aad ugu shaqeynaya amniga gaar ahaan gobolka Sanaag rabshadaha ka soo yeelay degmada ceel afwayn taasoo ah siyaasadii xukuumadda Muuse Biixi Cabdi oo fasaxay kuna baaqayna beeluhu shiri karaan danahooda ka shiri karaan horumarka ka shiri karaan midnimada iyo jiritaanka Soomaaliland shirkana waxaan filayaa guul iyo miradhal inuu ku dhamaado. sidoo kale xildhibaan Sciid axmed raage wuxuu hambaliyay safarkii madaxweynaha Soomaaliland ku tagay wadanka Guinea guulihii ballaarna ee uu ka soo hooyay. aanu hambaliyay inuu taageerayaa safarkii madaxweynaha uu ku tagay dalka Guinea taasoo aynu ka gaadhnay diblomaasiyad aad iyo aad u sareysa oo dunidii qadiyadeeni ay gaadhay midowga Afrika dawladda Guinea waxaanu leenahay wad ku mahadsantiin sida wanaagsan ee sharafta leh protocolka leh aad u soo dhaweyseen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dhammaan shacabka reer Soomaaliland iyagoo midaysan bay taageerayaan maantana farxad bay noo tahay. وعبد الغني عبد الله محمود عبد الغني بافو ورركة تلفزيون كرويال تي في مقالة برعو.